الحمد لله وكفاه وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan rabaa inaan maantana haddii ilaahay yiraahdo aan ka hadalno arrimaha ku saabsan kala duwanaanshaha dhaqanka oo la yiraahdo ay cidaan luqadda ingiriiska lagu yiraahdo intercultural diversity, yacni waxay tahay dhaqankeenii iyo dhaqankan maxaa u dhexeeya oo farqi ah, maxaan ku kala duwanahay annaga iyo dadkan, sideense isugu imaan karnaa. waxay maanta ila tahay kala duwanaanshaha dhaqanka inuu yahay qayb muhiim ah oo nolosha hooyada Soomaaliyeed iyo aabuhuba inay ogaadaan ay tahay wax muqadas ah, sababtoo ah wadankeeni waa ka soo tagnay, waxaana nimid wadan naga dhaqan duwan, naga af duwan, nagana diin duwan. intaasoo dhan annagoo og ayaa nimid. waa inaan ku qanacsanaanaa, xiriir wanaagsanna aan la samaysanaa si dhibaatooyinka naafeeya caruurteena ay maanta wax uga bedelanto ama ay uga yaraato. waa inaan ka baxnaa isolationka ama yacni is-ururinta oo aan noqonaa dad xiriirkooda uu aad ula wanaagsan yahay ama intercultural communication needskooda uu high yahay, si aan u saxno dhibaatada maanta kasabtay in caruur badan oo aan kusoo dadaalnay oo nafsadeena usoo hurnay oo nolosheena usoo baabi'inay ay aan weyno iyagoon xilligoodii yacni ay wax qabsan lahaayeen ay ahayn oo xilligii yacni ama lagu degi lahaa ama ay degi lahaayeen ay tahay. dhibaatooyinkaas marka maxaa sababa ayaan isleeyahay. maanta wixii sababa ayaan rabaa inaan wax yar ka sheego haddii ilaahay yiraahdo. taas kala duwanaanshaha dhaqanka wadankan u nimid iyo keeni maxay tahay marka. waxay tahay kala duwanaanshaha waxaan haddii aan ka soo bilaabo luqad ahaan dadka waxay ku hadlaan luqadeeni ka gedisan. waxay yihiin dad nolol ahaan aad iyo aad nooga horumarsan ama very talented people waaye. waa dad isku xiran kana fikira ilmaha ay dhalayaan ama waxa ay u qaban karaan ilmihii ka fikira. annaga laakiin dhaqankeen wuxuu ku salaysan yahay ilaahay ayaa irsaaqayo, waa xaqiiqo ilaaha irsaaqayo, laakiin ilmo walba inuu xaqiisa ka helo waalidka ayay waajib tahay. waalid kastana inuu waajibkiisa ogyahay ayay muhiim tahay. marka ogaanshaha muhiimadda waxay tahay inaan ogaano waajibaadka waalid ahaana saaran. waxay ahayd dhaqankeenii mid hooyadu ay guriga joogto, aabuhuna uu soo shaqeeyo inta badan, ilmuhuna ay haystaan yacni freedom aad iyo aad u weyn. mar ali marka cunuga 4 sano gaarana in iskuulka la geyn jiray. iskuulka marka nala geynayana cidna gacanta nagama qaban jirin oo 4 sano wixii ka bilowda annaga baabuurta sida la isaga ilaaliyo inta nala baraa iskuulka naloo diri jiray. iskuulka marka naloo dirayana waxaa waalidku uu samayn jiray in nala siiyo marka wax isu sheega. inta badan wax isu sheeg wuu yaraa oo waxay ahayd canaan ama yacni in madaxa jeegada laga dharbaaxo ama ul yar oo shabiicley lagu soo qaato oo lagu shabiyo. laakiin inta haddaa cunugaa guriga kusoo shabiso dhibaatada jirta maxay tahay. cunuga haddii adi dhaqanka lagugu soo kori waa ku korina aad tiraahdo waxay tahay restrictionka dhacaa wuxuu yahay meeshii dad ilmo waxaa jiro ilmaha wadankan dadka wadankan iskale ilmahooda wax u sheeg iyo la ciyaar iyo koolkoolin iyo wax ka dhageysi iyo ku koriyeen. annaga laakiin waana la soo koolkooliya. nacam dhaqankeeni ma qaldaneen haddii loo fiirsado, yacni meel walba waxaan ka helaynay qof ul wadato iyo qof jeegada naga dharbaaxdo. laakiin inta cunuga markaa guriga kula soo qoyso ama faraha kasoo dharbaaxdo ama jeegada ka dharbaaxdo, inta iskuulka waxba la iskuma dharbaaxo. oo iskuuladan oo Yurub iyo Mareykanka iyo meel kasta ay tahay wadamadan meel la isku dharbaaxa ma leh. ulma wata macalinka sidii keeni madarasadana lama ogola oo waa child abuse waxyaalaha lagu yiraahdo. marka oo lama ogola in qof la garaaco ama lagu qayliyo ama laga ooyisiiyo ama
si xun loola dhaqmo waana arrin aad iyo aad u wanaagsan xaqiiqada laakiin waxay tahay inaan fahamno oo aan la jaan qaadno ummadan si xiriirkeenu uu u wanaagsanaado annaga iyo carruurteena naga dhexeeya xiriirka carruurteena iyo dadka kale ka dhexeeyo social skillska la yiraahdana dadkan waa xirfado ay barteen aqoontaasoo kale iyadana inaan ka kororsano ayaan maanta ku talagalay in badan oo aan ka ogahayna waa idiin soo sheegi doonaa page to page insha allah maalinba midda ka dambeyso mid cusub ayaan idin keeni doonaa waa free haddii ilaahay yiraahdo oo wax aan idinka rabo ma laha wixii ilaahay uun iga siiyaan ka raba oo waajibaadka uu xagga yooma laa yanfacu maal walaa banuun maalinta dee dambe inaan wax ka helaan raba haddii ilaahay yiraahdo idinkana maadaama aan ogaaday ama aan aqaano inaan idinkala sheergaray marka dhaqankii maadaama uusan cunugaagii ka helaynin garaacid iyo qaylo iskuulka oo macalimadii hadday cabdi maxamed he's not listening way qoraysaa in badan oo qaylada ka mid ahna waxa waa qayb oo dadkan waxay ku qiyaasan cudurrada qofka markuu qayliyo annaga dhaqankan waxay ahayd in haddii lagaa gardaran yahay aad qayliso oo iswaasho siya xaq inuu kaa maqan yahay dadka u dareensiiso laakiin inta haddaa qayliso waa nooc oo waalida ka mid ah qaylinta hadalka degdeg qofka hadalka boobsiiska u sheegana waa qayb been sheegidda ka mid ah qofkaas inuu qaldan yahay ayaa loo fahmaa gacmaha oo saan loo laabto iyo wejiga saan la dhaho oo xoogaa yar annaga waa the best respect aan qof tusinayno marka aan la hadlayno ixtiraamka ugu weyn oo qof ka tusino waa saas laakiin waddankan waxay ka tahay aan fully locked wax cross aanba ahaba qof aan warkiisa maqlaayo ma tihid waxa ii sheegi kartana male marka waa kaa xirtay waa hadalkaygii indhaha inaa qofka indhihiisa fiirisana waxay tusaysaa inaad run sheegayso qofkana 70% ilaa 80% waxay akhriyaan qofka body languagekiisa ama luqadda jirka qofka sida uu u hadlaayo haddii kaleeto waxaa tahay qof beenlow ah inta jirkaaga ka muuqata haddii ay qaldan tahay haddaa iswaalaysid haddaa boodboodaysid annaga xaqaa kaa maqan waa isla naqaanaa laakiin inta xaq kaama maqno dulmilow beenlow ah oo ummadda inuu xaqeeda dhaca rabo dadkiina qalad ku weeraraa tahay ama qof waalana maskaxda looga jiraa tahay marka arrimahaas iyo wixii la mid ahna inaan iska ilaalino waa wax fiican xiriirka marka arrimahaas aan iska ilaalinana waxaa ku xiga barashada luqadda barashadooda waxay aad iyo aad u hagaajinaysaa inaad xiriirkaagu wanaagsanaado xaqaagana aad hesho meeshii aad ka heli lahaydna inaad u doonato maxaa yeelay luqaddu waa furihii kuu furi lahaa rabitaanka meesha aad danta ka leedahay oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man ta'allama bi luqati qawmin ta'amana bi makrihim marka waxaa jiro kala duwanaanshaha dhaqanku inuu saameyn weyn ku yeeshay carruurteena cunugi marka aad iskuulka u dirto annaga waxay ahayd macalinkaasaa la dhiirgarayn jiray laakiin inta qof kasta ma aamini kartid qofka naaw inaan kuwa maanta cunugaaga wixii la rabo marka lagu soo sameeyo macallimiinta qaar way xun yihiin markay ilmahaaga waxay rabaan ku soo sameeyaan oo ilmihii jahada ka gadaan oo rafaadiyaan oo cunugaaga maanta dhan meel qaldan lagu hayo iyo wax qaldan lagu sameeyay ay waxay marka albaabka ka soo bixi rabtana bac dacwo ay ku soo dhiibay bacdaas dacwo cunuga is been naughty talk to him or she's been naughty la hadal do waxaasay ku soo sheegay adna jumlo kale lagu soo dhiiba oo homework inta cunugaaga ku mashquuli lahayd dhibaatada gaartay inaad ka caawiso ama aan noloshiisa wax badan ka kabto ayaa waxa ku mashquulaysaa cunugaaga inuu qaldanaayo laga soo dhaadhiciyay ilmihiisa uu sixi lahayd ku mashquule taasna waxyaalaha ilmaheena inay qara iska tuur noqdaan oo xabsiyada isku dhex dilaan oo nafsadooda ay macno la yeelan weyso oo jidadka istaagaan ay hopeless iyo helpless noqdaan waxaa keentay inay hooyadu macalinka la safato macalinka la safo laakiin cunugaagi rabitaankiisa mar walbaba inuu koow ahaado isku day hooyada Soomaaliyeed si ilmaha ay
uga badbaadaan dhibaatooyinka naafeeyey oo yacni adduunka ciriiriga ku noqday ay nafsadooda inay heeray dilaan ama ay xataa nolosha ka dhacaan gaarsiiyey sababtoo ah markaa maanta oo dhan uu yaryahay aadi bareesharkaaga ku haysid oo iskuulkiina ku celcelinayso iskuulkiina uu bareeshar cunugii ka haysto waad aragtay dadkan markay ilmahooda soo wadaan intay cunuga size-kiisa inaad u fariistaan ayay weydiiyaan how was your day hooyo aabo how was your day maalintaadi say ahayd maxaa isbedelay maxaa cusub si cunugii isla markaasba loo xaliyo dhibaatada uu sheegto macalinkan wuu ogyahay in waalidkan xisaabtamayo laakiin adi markaa gacanta kasoo jiidaysid oo sida qof ooba wax taxadira cunugeeda siinaynin ay ku arkaan 2-3 bari maalinta afaraad cunugaaga wixii la rabaa lagu sameynaa qofa u xisaabsan tahana male barina dhibaatada markii ay ka badato cunug wuxuu ku leeyahay iskuulka dhanba wax yaala oon dhibaato ahayn male markaasaadna ku baraarugaysaa saameynta kale ee ilmaha effect garayso waxay ka mid tahay xiriirka waalidka oo xumaada labada waalid xiriirka ka dhexeeya haday xun yihiin waxaa gaaraya ilmihii dhaawac aada u culus qaylada iyo buuqa iyo mashaakilka waalid diinta dhex galana ilmaha saameyn weyn ayay ku yeesheen ama ha kala tagaano ama isla joogaano laakiin conflictiga oo labada waalid dhex marto ilmahana dhibaato ayay u leedahay marka arrimahaas iyo wax la mid ah inaan iska ilaalino wama tawfiiqina ilaa billaah ilaa ayaan talada saaranay isaga hoggaankeena ku filan wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum warahmatullahi